wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan keenan arhoy reer kalama may war haytan geeka wadaaye aad may hayta mid ka haysid midka ku xogaanaya min ii sheegdo maynka dhaganta kaaga sheekaygu waa ku xogaa war idinka war ma haysaane nabadii nolol waxay diyaarinaysaa xuska maalmaha xurriyadda ra'iisul wasaare khayrana guddi uu magacaabay wasiiro ay ku jiraan hadda xurriyaddu diyaar garooba masaar madib moordi oo moordada oo dasaleeri war maxaa xurriyad la xusaa dadkii shacabka ee waddanka u dhashay aaba weysana wada ay maraan ma waxaa ka wadaa dalku xor maaha war sida aad rabto qaada waryaaya waa iska murantaane cadowga ugu daran ee shacbiga ma taqaanin horta lacagta waa saaxib lacagta war maahana waa madax kursigeeda ilaashata war isan dhow ma kasnay xaan cunaa yaanka daron war cadowga ugu daran shacabka waa Kenya iyo Ethiopia war cadowga ugu xun ee shacabka waa dhagaxda jidka taala waryaa tan oo kale arkay qofba wuxuu rabo iska sheegaya war ma lacag cadow jirta waryaa cadowga ugu xun shacabku waa ciidan aan shaqadiisa aqoon warwariye Xuseen Cabdille oo ka tirsan radio kulmiye dhowr jeer uu la kulmay daacadii maantaas ugu dambeysay asagoo u soo socda xaruntiisa shaqada ayay askar waxay u geysteen jirdil hanjabaad gaarigiina laga jajabiyey rasaasna lagu furay manahan markii ugu horeyso dhowr jeer ayaa wariyaha sidaan loo dhibay asagu mucaaradka u wareysta muu iska daayo war lanka kanoo mucaarad iyo muhaafad malan fidhiyo dogomay dheega jiray walaashay waan daab wiinta markantii koo kale iyo ka difaaca lahaayeen iyo badilidoo hayaan war 2019 sidii loo gudugalay ciidanka wariyaasha lagu diray aniga kamid ahoo dhigtaa lii dilaacay maskiin adimay ku dileen warnimayo waxaan u malaynayaa ciidanka hadda jira shacabka inay difaacaan looma samayne kursiga inay difaacaan baa loo sameeyey amisoomna nabad ilaalin looma keenin dalkaane faragelinta shisheeye inay ilaalisaa loo keenay war dogoonka kanoo madi haan haado hataniin sheegas madun ciidanka habaabsadaanay war beesadooda hal la siiyo lacagtooda hal la siiyo lahayni mayninka sheego wayti aan hele war meesha askarta tababarka loogu furay waa magaalada Baydhabo wasiirka gaashaandhigana u furay hore u soco gadaal u soco shacabka ilaaliyaan la barayaa war ciidanka in wax la baramal diidane wasiirka gaashaandhiga taliye ugu horeeyay ciidanka Soomaaliya magaciisa saddexaad ma yaqaana waryaaya qayla dhaan lama rabe ciidamadu dalkay u shaqeeyaan iyo dadka adinkuna la shaqeeya mushaarjo hal siyoy war waxaan weydiinayaa madaxweyne Waare Yuusuf Dabageed xagee kala marayaan iyagoo baraajil ha ogaayo war Yuusuf Dabageed hali eber ayaa la diray war taa loo diray baba la dheelino ciyaartii dhameedba waa uu banaday baa la yiri oo shabaqii uu qaatay war gudoomiye madaxweyne Waare uu magacaabay Yuusuf Dabageed wuxuu yiri guriga kama soo bixi kartid Yuusuf Dabageed qarafateen war anisin haaye nuh oo ma hideerasa galmudugyaha oo deerti mayna lata may iskhilaafay madaxweyne haaf iyo ahlul sunna iskhilaafan leeri warka ma dib badaday Facebook horta bal iska daawado jiray daawadi Facebook deerti ya yoona jibaab rasmi ah ka biyeen wallahi been weeye waana laga been abuurtay waxba kama jiraan weeye waxaas idii wadwada nala ku soo riixi maayo anagana dan imuraad midna ka malihin maaragta sideena baan u wada shaqaynaynaa bay dhaheen war maday isaaqow xaaf ma dafiya u noqotay taasa ku fiican tahay war xaaf wuxuu halka ka qaaday afhayeenkiisii maana waa gudoomiye gobolka mudug mid kalena magacaab war safiirka Soomaaliya Kenya u fadhiya ee tarsan waxa uu yiraahday xiisada u dhaxaysa labada dal wax saameyn ah kuma yeelan safaaradda madaxtooyada Soomaaliya wax saameyn kuma yeelan shacabka bisa la dhibaatay war xirnashaa wadooyinka madaxda dawladda saameyn kuma yeelan shacabka saameyn ku yeelatay war dhacay waxa la yiri aqliga u baahan baa la yiri xubin buu kootaaye ruuxii bistii
beriismaanku yahay una bogsoon waaya bilaash noloshiyo milguhu waa barkumataal bilaawaha intaan sidannay oo boqonta goynaynay ama aan buntuq iyo rasaas bagac ka siinaynay berrigiyo intaan xaafadaha beel u dirinaynay xoog soo boqooliyo col baa qaatay badihii war intaas dhibaato ee hooba gobtan digtor habeebanseeda war intiina waxaad sheegaysaan shaqaabuur ma noqdaane shaqooyinka ka bannaan soomaaliya baan idin hayaa naxli designer qabyaanad driver laaluush beer kalageyn editor isku dir writer mashruuc taker tuhum believer Somali attacker tuldaan nominator iyo colaad combiner war baalga muundinimi eberno dhigdayna jeesha gadiyeede hal habba kama jiro kama naaqan warbada isaaqow adiga wax ma fahmine wiligay ma arkan dagaal la xayisiin oo liya shaqo balan waay anigaba wiligay ma arkin tuun shaqo laga dhigaayo warnimayo waxaa la yidhi caqligaygu waa kooban yahay amar ilaaheeye niman yahow jacayl iyo qabiil maa la kala daayo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sidaas baana gabay aniga haya fiican haddaad fiican tahay dumarkaba u fiican tahay adigaa fiicanoo waan ku jeclahay waay war gabay gaaban anisiin haaye maandheeskaw jacayl ma xuma midkaad jeclaatayse jufada ma ka dhashay war yaaya war waa waalateennadha kala wada waryaa jacayl lama koontaroolo yaa idin yidhi jacaylaa la koontaroola kursigaan jecelnahay naga taga iimaanka allah idin gelshe